kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Warlalis Media fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saaro ugu horeyntii si markasta aad u heshid warka dalka iyo dibadda intaba ka jira qodobada maanta aad ku daawan doontaa warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cosoble oo sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uu tagitaankiisa lagu xiray lacag madax furasho ah si loogu tago madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si bareer ah u qirtay in uu hanti dadweyne xaday waa madaxweyne Cali Mahdi wadooyinka magaalada Muqdisho oo maanta u xiran ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Imaaraadka Carabta oo doonaya in la xiro saldhig military oo wadanka Turkiga uu ku leeyahay Qatar laba diyaaradood oo isku dhacday xilli hawada ay ku wada jireen qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Warlalis fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar waa tahay daawadayaal qodobadaasi aan idin sheegay oo faahfaahsan ku soo dhawaada aynu ku bilaabano madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cosoble ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya tagitaankiisa ay ka horeyso in aad bixisid lacag taasi oo gaaraysa $300 si madaxweynaha lagu ballamiyo qoraalkan ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook ee madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cosoble isagoo oo kadib ka saaray sheegana in bartiisa ciwaanka si qaldan wax lagu qoray waa kan qoraalka uu soo qoray madaxweynihii hore ayaa wuxuu u dhignaa sida tan ra'iisul wasaare Roble waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu qaalisanaa ee soo mara Soomaaliya xafiiska waxa ka socda hawl aan hubo in uusan war u haynin oo ah in laaluush aad bixiso in aad markaasi kadibna asaga lagu gudbiyo daacayad igama ahan oo si bareer ah ayaa aniga la ii weydiiyay laba ka mid ah kuwa protocolka u qaabilsan ayaa midba si gaar ah ii weydiiyay inaan bixiyo lacag gaaraysa $300 si la igu sameeyo ballan official ah oo aan kula kulmayo waxaan hubaa inuusan Roble wax ka ogeyn arrinkaasi balse wuxuu dhahay balse waa arrin aad looga xumaado sida kaliya ee aan ra'iisul wasaaraha ku ogeysiin karana in arrintaasi ay tahay in aan Facebook ku soo shaaciyo xafiiskiisina uu ogaado qoraalkan ayuu ku qoray madaxweynihii hore ee Hirshabelle bartiisa uu ku leeyahay Facebook hase ahaatee daqiiqada kadib ayaa laga saaray qoraalkaasi waxaana lagu soo bedelay qoraal kale oo ku sheegaya Cali Cosoble in qoraalkii hore uu ahay in Facebook-giisa laga jabsaday qoraalka kale ee ku soo jawaabay ayaa sida tan u qoray waxaan ummadda Soomaaliyeed ka raali gelinayaa in maanta Facebook-giga la iga jabsaday war been abuur ahna lagu soo qoray ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waan isku xirannahay cilaaqaad wanaagsan ayaana naga dhaxeeya Facebook-gigana waan soo ceshtay ee iska raali ahaada sidaasna ogaada ayaa lagu qoray barta Facebook ee Cali Cosoble hase ahaatee waxaa muuqata in qoraalka Cali Cosoble uusan ahayn mid Facebook la jabsaday lagu soo qoray asagu si toos ah u qoray arrinkuna dib ula xumaaday kadib markii uu qoray ama cadaadis uga yimid xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya watahay daawadayaal Warlalis Media ayaad naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar markana madaxweyne hore oo soo maray Soomaaliya ayaa waxa uu qirtay in hanti dadweyne uu xaday si bareera ayuu hadalkaasi u sheegay waa madaxweyne hore ee dalka madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed oo bixiyay wareysi dhif iyo naadir ah oo mararka qaarkood la qaado ayaa waxa uu ka hadlay waayihiisii nololeed iyo arrimo kale oo xasaasi ah Cali Mahdi ayaa waxa uu sheegay soona hadal qaaday dhacdooyin kala duwan oo uu la kulmay sida dagaalkii uu la galay Generaal Maxamed Caane Faarax Aydiid ugu horeyn waxa la weydiiyay su'aalo la xiriira arrinkaasi haddii uu weligiis sameeyay xatooyo xoolo dadweyne intii uu madaxweynaha ahaa iyo ka horba madaxweyne Cali Mahdi ayaa qirtay inuu sameeyay xatooyo dadweyne waxa uu sheegay in isaga oo dhalinyaro ah 1968 uu xaday lacag gaaraysa 25,000 oo shilinka Soomaaliga ah isla markaana uu ku dhistay guri uu ku lahaa xaafadda Siigaale ee degmada Hodan waqtigaasi ayaa lacagta shilin Soomaaliga ah kunkeeda shilin waxa uu ahaa qaali waxaana la kala siisan jiray dhul baabuur iyo hanti weyn oo ama wax weyn ayaa la kala siisan jiray xoolo dadweyne aniga waan xaday anoo yar oo dhalinyaro ah oo 20 jir ah ayaan waxaan xaday 20,000
oo shilinka Soomaaliga ah 1968 ayay waqtigaasi ahayd waxaana ku dhistay guri siigaala ku yaala oo aan deganaay 300 oo dhul ayaana kala baxay 300 oo kun injineerka ayaan siiyay inta kalena wuxuu yiri alaab ayaan ku gatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa sidoo kale intaasi ku daray in markii uu dib u barbaaray diinta Islaamkana uu si fiican u fahmay uu sadaqaystay gurigaasi diinta marka aan dib u bartay waxaan ogaaday in qatar ay ku jirto oo aan guriga la deganaan karin xalaalna uusan ahayn hadalkiisa asagoo sii wata madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayuu yiri waxaan ku cunayaa xalaal iimaysan ahayn wixii igu dhashana Ilaahay ayaa og xaaladooda gurigii waa sadaqeeyay ayuu mar kale yiri sidoo kale waxa uu intaasi sii raaciyay muddo ka bacdi haddana waan fikiray waxaan iri sadaqo waxaad adigu leedahay ayaad sadaqaysan kartaa sidee adiga deyn lagugu lahay u sadaqaynaysaa waan baxay bangiga dhexe ayaan tagay oo waa xilligii Xasan Sheekh Maxamuud Bashiir Ciise ayaan u tagay gudoomiyihii bangiga dhexe waxaana ku iri Bashiir oo 1968 doolarka meeqa ayuu ahaa waxa uu ahaay ayuu igu yiri 6 shilin ama 18 senti 25,000 igu qaybi waxayna noqotay 40,045 doolar kadib Xasan Sheekh ayaan u tagay waxaana iri lacagtii ayaa la igu leeyahay dawladda lacag igu leh ii sheeg sidee ayaan yeelayaa maadaama lacag la igu leeyahay ugu dambeyntii waxaan hoosta ka xariiqay in aan ka qoomameeyo laba arrin oo dhacday waayihiisii gaar ahaan intii uu dalka ka talinaya madaxweynaha ka ahaa Cali Mahdi ayaa tilmaamay in labadaasi qodob ay yihiin go'aankii ku dhawaaqista ra'iisul wasaare Cumar Carte Qaalib ee uu ku kala diray ciidamada qaranka iyo dagaalkii uu la galay Caydiid ee markii dambe isku bedelay dagaal u dhaxeeya Habargidir iyo Abgaal watahay daawadayaal Warlalis Media ayaad naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar markana wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta waxay u xiran yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya ayaa saakay aroortii hore xiray qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ciidamada oo wata gaadiid dagaal isla markaana ah kuwa loo yaqaano koofi cas ee ka mid ah ilaalada madaxtooyada ayaa lagu soo daadiyay wadooyinkaasi iyagoo hakad galiyay dhaqdhaqaaqii gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay dadka lugeynaya ayaa isugu jira arday iyo kuwa shaqo u socda iyagoo cagahooda maalaya si ay u gaaraan xarumahooda meelaha xirana waxaa ka mid ah dhammaan isgoysyada mara wadada Maka al-Mukarrama iyo sidoo kale wadada hormarta dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ma jiraan wax wargelin ah oo loo sameeyay dadka si ay u soo ogaadaan arrinkani laamaha amnigana ma aysan sii bixinin waxaa taasi keentay in saakay dadku ay ku soo waabariistaan wadooyinka ay xiran wararka qaar ayaa sheegaya in sababta loo xiray jidadka ay tahay booqasho uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku tagayo isbitaalka Yaradimiile ee magaalada Muqdisho isbitaalada kale oo tagi doona ayaa waxaa ka mid ah Banaadir Madiina Digfeer iyo goobo kale oo ay ka mid tahay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Roble ayaa maalmihii u dambeeyay waday kormeer isaga oo shalay booqasho ku tagay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho xirnaashaha wadooyinka ayaa waxa uu noqday wax iska caadi ah caasimadda dalkana aan la yaab ka noqonin waxaana mar walba oo kormeer ay sameynayaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ama shirar weyn ay aadayaan loo xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo aan wax dan ah ama asxaan loo sameeynin dadka shacabka ah dantuna ay ku qasabto in ay lugayaan watahay daawadayaal markana haddii aanu eegno ciidamada Turki ah oo jooga wadanka Qatar ayaa waxaa la sheegay in ay wadanka Imaaraadka doonayaan in ciidamadaasi laga saaro iyaga oo sheegay in ciidamadaasi halis weyn ay ku hayaan khaliijka Carabta waxaa sidaas yiri sarkaal sare oo u dhashay Imaaraadka Carabta waxa uu intaas ku daray in ay uga sii darayaan ka qayb qaadashada arrimaha gobolka Imaaraadka Carabta iyo xulafada Carabeed oo qayb ay ka yihiin ayaa waxa ay go'doomiyeen wadanka Qatar sanadkii 2017 waxayna dalbadeen in la fuliyo shuruudo ay ka mid yihiin in Dooxa ay xirto saldhigga military ee Turkiska oo halkaasi ay ku leeyihiin Turkiga Abu Dubai ayaa sidoo kale kala taageera iyo sidoo kale Abu Dubai iyo sidoo kale Ankara ayaa waxa ay kala taageereen dhinacyada isku haya dalka Liibiya
jiritaanka saldhigga Turkiga ee gacanka Carabeed waa xaalad aad u adag ayaa uu yiri nin u hadlay wadanka Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo Anwar Garqaash oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka. waxa uu xoojinayaa kala qaybsanaanta mana ixtiraamayo madaxbannaanida dalalka gobolka, danaha dalalka khaliijka iyo shacabkooda. Mareykanka oo doonaya inuu dadaal ama uu dalalka Carabta uu la samaysto xulafo gooni ah ayaa la aaminsan yahay inuu gadaal ka riixayo isagana arrinkaasi. waa tahay daawadayaal, waxaad naga daawanaysaan Walalis Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar si mar kasta aad ula socoto waxyaabaha ku cusub dalka iyo dibaddiisaba wararka ka jira. markana daawadayaal, faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa shil diyaaradeed oo ka dhacay hawada kadib labada diyaaradood oo iska hor yimid. laba diyaaradood oo aad kuwo waaweyn ay ahaayeen ayaa isku dhacay iyaga oo hawada ku jira, kadib waxa ay ku burbureen bartamaha dalka Faransiiska, halkaasi oo ay ku dhinteen 5 ruux sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah. shilka labada diyaaradood ayaa galinkii dambe ee Sabtida ka dhacay magaalada Tours ee ku taalla koonfurta bari ee wadankaasi. shaqaalaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan qiyaastii 50 dabdamis ayaa loogu yeeray goobta si ay xaaladda wax uga qabtaan. ma jirin cid kale oo waxyeello soo gaartay markii ay diyaaradda dhulka ku soo dhacaysay. labada diyaaradood mid yar waxa ay siday 2 ruux, midda kalena waxa ay siday dad kale. diyaaradahan hawada iskula dhaca ayaa inta badan ku badnayn caalamka, waxaana qaladaadkooda loo saariyaa inta badan duuliyaasha diyaaradahaasi wada. daawadayaal, waxaad naga daawanaysaan Walalis Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar si aad markasta ula socoto wararka dunida dacaladeeda ka dhacaya.